xaflad kooban oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay gabdho bartay farta Soomaaliga iyo kombiyuutarka ayaa waxaa maanta lagu qabtay degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir halkaas oo ay uga qayb galeen mas'uuliyiinta ururka haweenka qaranku waana dufcadii saddexaad ee si bilaash ah far Soomaaliga iyo kombiyuutarka uga baratay xarunta kobcinta haweenka Bilqayr waxaana isugu jiraan hooyooyin iyo hablo da'yar Canab Maxamuud Jagaxiir maamulaha xarunta kobcinta iyo horumarinta haweenka ee Bilqayr ayaa sheegtay in isku xilqaantay waxbarista hablahani isla markaana ay dadaal u gashay sidii haweenka danyarta ah ay dhanka aqoonta uga kaalmayn lahayd waxaa mahadnoo ah inaan maanta isugu nimaadno markii saddexaad oo aan ku qalin jabinayno gabdho Soomaaliyeed oo la baray af Soomaaliga iyo xogaa qoor la baray skiilka oo kombiyuutarka alxamdulillah waxaa noo suurto gashay inaan intaas soo wadno annagoo haba yaraatay wax kale oo ilaahay mooyay wax kale noo kaalmeeyaysan jirin waanu ku guuleysan ilaa hadda gabdhaha Soomaaliyeed ee aan haba yaraatay waxba qori karin sidaan jahliga ula dareeri lahayn insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan intaan ka sii kororno oo aynaan af Soomaali kaliya fadhin ee qolooyinka hadda af Soomaaliga la baray skills kale loo sameeyo gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe ayaa ku bogaadisay Canab awoodsiinta hablaha waxaana ay ballan qaaday in ururka haweenka qaranku ay qayb ka qaadan doonaan sidii waxbarasho sare ay u heli lahaayeen dumarkani marka annaga waajibkana saaran oo aan maanta hortiina Ilaahay dartii ku ballan qaadayna wax ay tahay inaan u sheegno Canab iyo gabdhaha la midka ah oo isxilqaamay ee Bilqayr sameeyay wixii ay soo saareen oo gabdha ah inaan la raadino aqoontooda in la kordhiyo oo ilaa heer jaamacadeed ay yeeshaan aqoontu ma aha mid ku xiran da'da waa mid ku xiran dadaalka qofka bini aadanka ah ilaa qofku intuu ka dhasho ilaa intuu ka dhinto waxay u furan tahay inuu wax barto waayo adduunka aqoonta jirta qofna ma soo koobi karo qof walba laakiin in ayuu ka heli karaa sidaa darteed waa ku faraxsanahay waxyaalaha ay qaadateen inay ka mid tahay akhlaaqda islaamka iyo dhaqanka suuban ee diinteena islaamka ayna barayso afkiina hooyo oo aad barateen iyo wixii kale oo la xiriira dhinaca farsamada iyo ku shaqaynta kombiyuutarka iyadana waa wax aad iyo aad loogu farxo